madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici iyo wafdigii uu hogaaminayay ee ku sugnaa dalka Sacuudi Arabiya si ay u gutaan waajibaadka xajka ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Jidda kadib markii ay soo dhameysteen acmaasha gudashada waajibaadka xajka iyagoo ka mid ahaa xujayta reer Soomaaliland ee sanadkan gudanaya waajibaadka madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici iyo wufuudda uu hogaaminayo ayaa diyaarad khaas ah oo ay leedahay boqortooyada dalka Sacuudi Arabiya lagaga qaaday magaalada Jidda laguna geeyay magaalada Madiina al-Munawwara madaarka Royal Terminal oo gaar u ah boqortooyada dalka Sacuudiga ay ka degeen wafdiga madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland uu hogaaminayo halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen saraakiil sare oo ka tirsan borotokoolka dalka Sacuudi Arabiya hab waafaqsan hab maamuuska madaxda dunida lagu soo dhaweeyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa markii uu soo dhameystay acmaasha iyo waajibaadka xajka waxa uga mahadnaqay mas'uuliyiinta boqortooyada Sacuudi Arabiya sida ay ummadda islaamka ugu fudeediyeen gudashada waajibaadka xajka isla markaana ay ugu qaabileen madaxda reer Soomaaliland ee uu isagu hogaaminayo hab maamuuseed meeqaamkeedu aad u sareeyo taasoo muujinaya xiriir wanaagga ka dhaxeeya dalalka Soomaaliland iyo Sacuudi Arabiya taasoo ay markhaati u tahay sida madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland oo gudanaya waajibaadka xajka loogu qaabilay dalka Sacuudi Arabiya madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa dhammaan xujaajta islaamka ah ee sanadkan gudanaya waajibaadka xajka gaar ahaan shacbiga reer Soomaaliland ee ku sugan dalka Sacuudi Arabiya u rajeeyay in alle uu ka aqbalo acmaasha wanaagsan ee ay la yimaadeen ee ay ku gudanayaan waajibaadka xajka intii ay ku sugnaayeen wafdiga uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici kasako waajibaadka xajka waxa uu qabsoomay tallaabooyin diblomaasiyadeed kuwaasoo kor u qaadaya cilaaqaadka Soomaaliland iyo Sacuudi Arabiya sida uu noo xaqiijiyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Muuse Abees oo qayb ka ah wafdiga madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ee dalka Sacuudi Arabiya ugu sugan gudashada waajibaadka xajka